madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo maalintii labaad ku sugan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa ku dhex socdaalay wadooyinka magaalada Gaalkacyo halkaasi oo isugu soo baxeen kumanaan shacab reer Gaalkacyo oo doonaya inuu salaan la dhex qaado madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo gawaari ay ku xiran yihiin codbaahiyaal ayaa dhex marayay wadooyinka magaalada kuwaasi oo ay ka daarnaayeen suugaan lagu cabirayo soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya ee magaalada Gaalkacyo shacabka ayaa lulayay calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sawirada madaxweynaha Farmaajo iyagoona ku dhawaaqayay erayo iyo hal ku dhigay madaxweynaha lagu soo dhaweynayo madaxweynaha Galmudug Axmed Geele Ducaale Xaaf gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare Abshir Maxamed Abshir Buqaari gudoomiyaha labada aqal ee dastuurka Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo xubno kale oo ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qayb ka ahaa soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya Axmed Geele Ducaale Xaaf ayaa sheegay in madaxweynaha Farmaajo uu kaga mahad celinayo booqashada uu ku marayo deegaanada isagoo uu maamulo madaxweynaha waa soo dhaweyseen waxaalaaliyo wixii madaxweynaha aan uga baahnaana waa u dhiibaynaa maantay marka ugu horraysa waxaan rabnaa inuu noo furo oo noo dhiso jidkii Hobyo iyo Gaalkacyo waxaan rabnaa in loo dhiso xabsigii aan dadka eedabta daran iyo mujrimiinta aan isaga xayno Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in magaalada Gaalkacyo uu ka doonayo inuu u sameeyo dib u heshiin dadka degan isla markaana laga baxo kala qoqobka dadkaasi waa magaalo ay ka bilowdeen halkankii ugu horeeyay ee maxaan ku yiraahdaa xorriyadoonka dadkii ugu firfircoonay ka yimaadeen siyaasiyiinteennii ugu wanaagsanaa ugu horeeyay Allah u naxariistay Cabdullaahi Ciise barnaamijka ugu horeeyay Soomaaliya barnaamijka ku xigay Cabdirashiid Cali Sharmaake Allah u naxariistay Gaalkacyo nabada waa Soomaaliya nabada ogaada colaadda iyo dhibaatadu magaaladan waxay u geysatay inaysan kobcin dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan inaysan u kobcin iyadoo weliba aan arkayo magaalo weyn inay tahay magaalada ugu weyn gobolada dhexe inay tahay hadday magaalada nabad noqon lahayd oo aad ka shaqayn lahaydeen nabad ganacsigii iyo dhaqaalihii adduunka imaan lahaa magaaladan intaasi kadib madaxweyne Farmaajo ayaa wuxuu dhagax dhigay wado isku xirta Hobyo iyo Gaalkacyo oo dib u dhis lagu sameeyay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Honkabel TV magaalada Gaalkacyo